horta lacagtan ku shaqaynayno hooyo kolka iyadoo way badan tahay laleeyahay ana waxaan kusoo galay gelinka horena 10 baa ku shaqaynaya gelinka dambana 10 20kaas aan u yeeday lacag noo ahayd 20 riyaal bulshada Soomaaliyeed ku daawanayso maxaad ku codsan lahayd waxaan u codsan lahaa horta qalba iga dhacayo gowdhe awoodna waan u laayahay aqal yar oo inaan ka yarabka ku dhex jiro iyo hooyo iga dhacayo awood aan ku dhistana ma hayo markasta waxa la yiraahdaa hooyo dabaysha timaado way kugu duridi baa la igu yiraahdaa سمعت قرر. هو يواقل نوعية مقبول بعض الصور. يعني شينكت ويا كل قارة شينكت ربايضة لا يرى حقيقة عندنا تفكير يرعى ويا شينكت مركان حقيقة المريرة كتير بوصل علينا هي أدل يرو أنت يركن واقع بكاء أنت يرو دستي يربع لا يدستي أنت لو يجا دست محماتك أنت يجا دست محماتك أنت وأنا قل يرى يرو كل كلية هنا waan iskaga dhex jiraa hooyo karama galo hooyo inta yar nagu dhacaysa ninba saacad baan ugu baahnaaba horta baahida bay haysaa in la yimaado dadweynana waan baryaayo markasta waxaan aadaa ilaa wadaan kugu xidhanahay khaalqa wadaan kugu xidhanay gargaar ii fidi baan iraahdaa ya walaa inta hadii laga dhiso aad baan ugu fiicnaan lahaa marka cid wax ka doonto waad raadinaysaa waan raadinayo hooyo dawladda hooyo si gaar ah iyaga maxaad ka codsan dawladda horta waxaan ka codsanayaa inay horta aniga halkaan baa igu daran hooyo qodob ka aan taaftay shaafiina nu tago naayirka u tago aan doonayo kowda hadana niyadeeda waxaan lagu sii deyn maayo hadana waxaan idin maanta lagu sii deyn maayo dhowr jeer baan inaan ka codsado guriga iga soo dhiso hooyo ayaan niyada ku qabtay hadana niyadeedii Ilaahay raaco waxa saaka wada la kulantay aqalkan ku jira dad aragti meeshan kala wada yaabi hooyo macaan hadana hooyo aan baan ugu hooyanaya hadgiisa marka yar fadhiisto hadana in la qaliyahay baan moodaya laakiin marka waxaan ka murugoonaya oo aad uga sii murugooda qabay inaad timaado in nagu tuurto oo nagu dul dhacaba taawan mid ka baqa inta batrigu yoogay batrina kan isaguna jooga maxay day halkan maxaa arrimaha bulshada maalin ma kan ku arkay wadada waxaan ku kaas maxaa yeelaayo haday wax yimaadeen hablaha weydiiyay kaalay biibiir halkan taga hadana waan isagina waan waayaa inuu ma arkaba aqalkan baan lahaa ka codsa iyagana wax yar xafiiska arrimaha bulshada alxamdulillah alxamdulillah maanta maalin khayr qabtaad la kulantay insha Allah waxaan ilaahay ka rajeynayaa hadalkii la aqbalay ilaahay inuu hadalkaygana iga dhigo magacaayo oo Maryam Daahir Ahmed baa la yiraahdo Daahir Ahmed ma haysataa hooyo lambar lagala soo xiriiro oo waan istaawoy korka ma ka yeedhin karo waan ka yeedhin karo hooyo yeedh bal eber sagaal eber lix lixdan iyo toddoba laba eber 28 soo garaac barato aad bay niyadeyda isku bedeshay run ahaantii maamada halkaas imika aynu isku wareysanay codkeedu waa cod qeyro leh macna oo qofka caadiga ah dareenkiisa aad u bedelaysa run ahaantii subax wanaagsan fiicanta hooyo aad iyo aad barnaamij baan hooyo duubaya in yar man ka duuba inaan ogolaansho ku weydiiso horta sax ma inaan ogolaansho ku weydiiso iyo sax ma waxaan hadda garab taaganahay mid kamid ah hooyooyinka nadiifiya wadooyinka waaweyn ee quruxda badan ee magaalada Jigjiga run ahaantii xilligan waa xilli habeen ah waqtigan bay soo kaceen si ay u nadiifiyaan wadooyinka oo bilicda quruxda badan leh ee lagu dalxiisayo hooyooyinka hadaba xilligan iyagu dhaxanta soo kaca ayaa inoo nadiifiya waraysi baan weydiin doonaa bal in xaaladahooga iyo ay nooga waranto hooyo warin soo dhawow bal warbixin naga si shaqooyinka xilligan wadiin hooyo waan kugu soo dhawahay hooyo dalka ugu dhalatay baan ahay dalkana si shakhsi ahaan waxaan ugu dadaalayaa dalkayga aqalkayga saan u hagaajin lahaa baan dalkaygana ugu hagaajinayaa inaan baan noo shaqayn jiray inankayga barakoobay oo xanuunsaday darasabashtii hore ayaan soo galay shaqada marka inankayga xidhxidhan oo silsilad igaga xidhxidhan ayaa guddoomiyay soo galay maalmo kamid ah maalin khamiis iyo arbaca waxa baan kala garan waayay shaqada waaban sidaan ku naxo kale kolkuu yiri hooyo wiilkaagii haduu xanuunsaday khadar inaad shaqo wadiga noo raaca qabalayga shaqo waxaan doonaynaa hooyo nadaafada ma gali hooyo iyo horeysiibaan shan ruux oo barigii waxaan jiray Maxamed Nuur waxaan jiray baarsabash dhexdeeda hawlaha guud waqtigaasana la qoray hooyo maalmihii la sii baxay baarsabash dadka qaqabana maalmahay dima qaawanay markay noo yimaadeen lagu oran jiray oo dadka ku qoslina marka dartiin soo dhaweeya waqtigaasan soo galay hooyo baarsabashtii hore ee qolada qoomiyadu inoo soo galeen wadanka ayaan soo galay shaqada sidii habeenkii waxaan ka hoydaa suuqa 11 ama 11 iyo barka 12 waa wax ka dhiman yihiin xaafada gaadha hooyo
waxaan galaa hooyo raaca bana waan fogaaday halkaasaan galaa halkan qabalaha 7 baan ku jiray waan u dhawaa magaalada halkaasaan bajaajta ka sii raacaa laba bajaaj baan bixiyaa habeenkii waxaan ka xamaashaa hooyo inaan ka tarax baan la shaqeeyaa nadaafada alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah waan ku kalsoonayna habeenkii hooyo waxaad tiri 12 ama 10 habeenimo ku hoyda suuqa hadana aroortii soo galaa shaqada markaad aroortii soo gasho tan waan xilliga dhex taagan hooyo kada habeenkii imka shaqadan imkaad ku jirto xilli maad hooyo soo kacdaan xilli ma soo kacaa waxaan soo kacaa marka qaarkood horta inta imkaan ku soo biiray shaqadan 6 sano ayaan ka yar maqnaa tan iskaashatadan kolkiiba oo yar go'ay uma go'inay mid kamid oo meesha ka shaqeynaysay ayuun baan maalin yiri odayga xabashiga haynayay shaqada aad bay noogu adag tahay halkan kan ka qaadanay imkaan taaganahay waliba halkan naga yar dambaysa waxaan ku gaarsiinayna carrada adbabaygaan ku gaarsiinaynay halka hadaan ku gaarsiino xabashiga baan ka codsaday 2 ruux 4 ruux baan ku shaqeynaynay lababa kaariyoon dhinac u haysteen marka xabashiga baan ka codsaday maalin Axmed Deer ay daba socday oo socodka yaga ahaa maalinta uu ila socday Abdullaahi uu ogaa waxaan ka codsaday dajanow 2 ruux noogu dar carradii baan awood u laanahay ruux noogu dar markaan idhi dajanoon ii jawaabin xabashiga ila tiri ama waad hooyana ma wad shaqeynaysi waxaan ku idhi mad baan wada shaqeynayna shaqada wada haynay maanta ma wada haynay aqalkayga ma dacwoonaye halkaas wala dhigaga jooji tiibaa dhagax igu noqotay tiibaa waxoogaa uga yar baxay haddana alxamdulillaah ilaahay igu soo celiyay shaqada waay marka intee in leeg bad kaga maqnay shaqada sana wallahi ka maqnaa 6 sanana waxaan xamaalanayay oo suuq oo ban xamaalanayay maalin quraata aqalkayga ma seexan aqalkayga wax dhex yaalo oo maanta ku fadhiisto hooyo ma jirto alxamdulillaah marka hooyo saacadii imsada soo gashaabad shaqada in ka jirto 3 barka horta waaban aanu aqalkayga waan ka soo fogaado raacabana weeyar waxaan saadato yarana baryar waayo halkan 12 dagteeda ayaan u soo go'ay shaqadan darteed gaartii hooyo aqalka joogtaa baan ahay galabtii markaan shanta ka yar wax u soo kariyo ku yar baa jooga xaafada iyo caruur yar yar oo inaan ka bukooday gurigaaga uma hoydo aanu imka inta shaqadan imka u soo go'ay dambe tan imkaan taaganahay waxaan leeyahay ka gaari maysid shaqada darteed ma seexdo garaartina xaafadan oolaa habeenkii markay tahay shanta markaan tan soo galo galabnimo maqribkaan tan bilowna suuqa waxaan waayahay isugada aroortii markaad tani soo gasho 3 iyo barka baa tiri 3 barkaan kici dumarkaas ka ag fadhiisan si aan camwehel helo haye dabadeedna gaariga noo imanaya 4 barka waxyaalahaas noo imanaya 2 goor buu soo qaada gaariga sitiga noo yimaada qaabaan oo soo raacnaa halka shaqada 4 soo gashay 4 iyo barka 4 oo buuxda xasan soo galay xilli marka ka baxdaa waxaan ka baxnaa waxaan shaqeynaa imika wakaalada inta noomalaa noola socotaay ilaa waxaan ka baxnaa 9 ilaa 2 iyo barka aadu 2 iyo barka iyo xasan ka baxnaa iskuulka la galay saacadaha la galay carruurtu gashay ku wada xirooto marka waa 2 subaxnimo 2 subaxnimo ilaa noo reeyaa mar baan 2 goor shaqeynaynay oo carro guraynay oo ka baxaynay casarka meeshan joognana loogu eedaamay baana maanta nagu ka waran hadana maalintii xilligaad ku soo noqotaa oo maalintii waxaan joogaa halkan xaafada tago dadbaan haddana caruuriyo ma joogto imka kuwa yaro khayra xamsada kuwiisuna waa ku quraanka xasaska dhigdhigtaan oo ardayda furada u badan yihiin dadka markaan dana dareerkii wuxuu dadka qabanayaan dhaxbal dhaqsado haddana shanta waxaan ka soo baxaa xaafada ka soo baxay gaarigan soo yar gaaraayo raacabana way ka yar durugsan tahay magaranaysa wajada markaan soo gaaro gaarigan ayaan soo raacaa toban ku soo raacnaa halkan mana keenay salaada kolka laga baxo dabadeed baan iyo shaqadan kala suuqa aad loogama baxo suuqa lagu adeegtaan galaayo waliba gaar ahaan meel yar culus oo waxaan ka shaqeeyaa suuqiga horteeda aad u dhib badan baan habeenka ka shaqeeyaa marka inaan ka taraxno iyo halkaan oo yeemay xabashadeeda ama dad way ogyo wallahi waxba iga ma qarqayna fiican weeyaa iyo xaalad waran hooyo imika wiilkii waa sidii markaa wiilkii hooyo wallahi xirkiina waa laga furo imika silsilada igagama xidhna qalbu silsilada igaga xidhna wadada madow intuu iga maraan daba dhaqaaqay in qabaayo imika maxay ahayd si way la joogtaa imika sidii ugu dhaama kolkuu xanuunsada way ka dhaqaaqdaa kolkay ka dhaqaaqdaa awlaada iyo waxaasina haddana aanunba igu dul go'aan haddana wallaahi bilaahi waxbaa ku helay isma yidhaa samirka waan isku celiyaa insha alla keenana alxamdulilah 2 ayaan ilaahay ka codsaday kolkuu dharaartii u xidhxidhka laga furay iyuu baxsaday waan daba dhaqaaqo hooyo kama hadhayso ku yar baan haddana dhabarka ku sitaa waan daba balaqnin inaan wax sita isma moodayo halkaasaan raaliqow baan idhi inankii khadarso igama xanuunsan 2 ayaan kaa doortay baan ku idhi inaad layga taxsiyo waa xaqi iyo inaad ii caafidid imikooyo sidii uu ii dhaamaa alxamdulilah wali waa fiicanahay dhaqaaqi ma laha imika fadhigu fadhiyaay laakiin socodkii wuu iska dhaqaaqayay dadaarta waxay igu dareed carruurta 2 wiil la baxsaday ee wajaale wuu soo xaday laygu yidhi ee qoriga lagu hayo xidh la yidhi waa figi xadhig baan ku xidhinaa la leeyahay
labad ciyaala biskud baa loo dhigay xabad yar oo maanga isagu hor fadhiya tusbax biskiridan iyo tusbax ma dhigayno tusbaxa horta uu ku fiicnaaday ilaahay baba intii ugu soo rogo u fiican yahay alxamdulillah waxba maanta igama maqno mar haddaan xamaalanayo dalkayga hooyaan joogo mar haddaan maanta la soo dhaweynayo aniguna maanta shisheeyana aanan dhex joogin xamaalanayo alxamdulillah hooyo dowladana aan inoo barakayo inta wada joogtana allah inaga dhigo hooyo amiin ku kalsoonaa halkan yaad codsi uga diri lahayd oo bulshada Soomaaliyeed ku daawanayso maxaad ku codsan lahayd waxaan hooyo ku codsan lahaa marka qalba iga dhacayo gowdhe awoodna waan u laayahay aqal yar oo inaan ka yarabka ku dhex jiro iyo hooyo iga dhacayo awood aan ku dhistana ma hayo markasta waxa la yiraahdo hooyo dabaysha hadii timaado way kugu duridi baa la igu yiraahdaa Soomaad gaar hooyo waa aqal noocee ama buul baa mise jiingad hooyo kolka hore jiingad arbaydo ma yar halka yaan deganaa dadkii yar caawiyo jiingad markan xagga yar meel yar ku jirno boosilaalina ayaa la yiraahdo inta yar kuna waa ka bukee inta yar u dhistay yar baa la dhisay intii hooyo iga dhismo xumaatay intii iga dhismo xumaato inta waan aqal yar oo reerka yar qolku leeyahayna waan iskaga dhex jiraa hooyo kirama galo hooyo inta yar nagu dhacaysa saacad baan ugu baahnaaba horta baahida bay haysay in la yimaado dadweynana waan baryaayo markasta waxaan adaa ilaa wadaan kugu xidhanahay khaalqa wadaan kugu xidhanay gargaar iyo fidi baan iraahdaa ya walaa inta hadii laga dhiso aad baan ugu fiicnaan lahaa marka cid wax ka doonto waad raadinaysaa waan raadinayo hooyo nasiib maanta waa yaana waa khamiis maanta soo maanta ay caad khamiis ma bishuna intay taa bishu waa 22 ما شاء الله وياد بان وفي عنها ياد بان وفي عنها waxaan ka codsan lahaa maanta 22 ka iga duubo diiday oo caawino ilaahay siiyo oo wada la soconaysiin hooyo maxaad markaa dadka ka codsan in laga dhiso dadweynaha waxaan ka codsan lahaa guriga in la iga dhiso awood baan u lahayd dabaysha markay soo kacdo ama roob yar soo kaco hooyo waan ka dhax baxaaba inuu nagu dhaco darteed oo awlaada ka gura ama halka afaafka hortiisa ayaan dhaadaa haduu dhaco saha ku dhaafo afaafka hortiisaan artu yar yarka u goglaanada hooyo cid ay noogu daran oo gab nagu dur yiraahdo xinaga dalka in malahan dhaada alxamdulillah niyadeeduna aad bay ugu fiican tahay waxba ku heli ma yiraahdo mar dad cashaynaysid ma yiraahdo quraan iska xamaalanaysid afa kama maqnoon baa niyadeyda hadana ku xasiliya maanta caawimada dadka bixiyada hadaad ii codsatiin codsigayga hadda maanta wax la iga soo qaado guriga aan baran dhanaayiga la boolo magacaayo Maryam Daahir Axmed baa la yiraahdo Daahir Axmed ma haysataa hooyo lambar lagala soo xiriiro oo waan istaawoyo korka ma ka yeedhin karo waan ka yeedhin karo hooyo yeedh bal eber 9 eber 6 laba eber 28 soo garaac barato ay 28 wadamay waan soo garaacay marka hooyo ilaa imsa sanad shaqeynaysay oo shaqada dawladda hoose nadaafada magaalada Jigjiga aad ka shaqeynaysay waxaan hooyo ka shaqeynayay maalintii ay baarasabooshkii hore la yidhi shan ruux baa lagaga daray qabalayada xukuumadii hore hore hadda baarasabooshka ma aha waladii u horeysay ilaa 12 13 way noqonaysaa inta hooyade kaman caajisay aroortii waan ku tala galaa oo halkaan baan markii hooyo horta shaqada soo gasheen ama sanadaha hore aad ka shaqeyn jirteen lacagtiina aad ku shaqeyn jirteen maxay ahayd horta lacagtan ku shaqeynayno hooyo kolka iyada way badan tahay leeyahay ana waxaan ku soo galay gelinka horena 10 baan ku shaqeynay gelinka dambana 10 kaas aan hooyo lacag noo ahayd 20 riyaal 20 waxaan kaga shaqeynay qabalaha ma jirin iskaashati ma jirin iskaashatooyinka ma jirin qabalay igana habeenkii gaariga la keenayay inta de sugiyaha iyo in yaroon badnayn baan haraynay kolka ahaan magaalada Sandee qashashkan iyo qashinkan ugu yaraaba kolka halkaan 20 ka gacanta inaga siinayay 20 ka kalena uu noo qormayay dawladda hoose ee wax naga maqnaaba ma jirin de lacag badan bay noo ahayd oo kala tan roorti inta soo baxna 20 ka ba helaba ana waan ku shaqeynay 20 ka sano iyo ku shaqeynay 20 kaasaan galin ka horan imika hooyo maxaad ku shaqeysay imika hooyo waa fiicanahay imika aad baan u fiicanahay imika ma sha Allah baa la taagay imika waxa lagu shaqeynayaa 6 baa lagu shaqeynayaa imika 6 baad ku shaqeysay imika ahaan imika aad bay noogu fiican tahay lacagtii wixii la siisanayay baa yar wada kacay oo dadkiiba ku kacay kolkii intaas dhuxul waan ka iibsanaynay 20 kaas dhuxul waan ka iibsanaynay haruur yar waan ka iibsanaynaa dhulka iska nimcaysnaa imika insha Allah nimcadina Allah inoo soo celiyo Allah inoo soo celiyo intaasaan ku dareeyo 20 kaga shaqeynayna galabtii dib u galay kan tan dhamayna maqribkii mafiiq baan xitaa xidhanayna hooyo caleen baan xidhanayna mafiiqiyo iskooba ma naan haysanin walaal markay ka dhamaadaan laba dumar ayaa noo doonaya caleentan qoyan ee xooluhu cunaan garawaaga geedka yar qoyan
geedkaasay noogu shaqo tagayeen laba dumar oo xabashii kolkay noo soo guraan gelinka horena kol baan xidhanaynay galabtii markaan tagaynay duurkii markaan soo rawaxno 3 goor baan mafiiqdana xidhanaynay xadhig baan ku xidhanaynay xadhigu hadduu naga habeenka dhaarta naga yar googo habeenka markaan hoydo ayaan xadhig soo hayay xadhigaasaan odhanaya waad iloobi shalmadaan ku guntanayay saaran u iloobi shalmadaan huganayo inta qaadanayo taaban hooyo ku guntayay dadaalkan waan soo muujiyay makana waan wadnaa insha Allah insha Allah inta ilaahay uu gaarsiiyo waan wadnaa قرن نفتك عبد حين إلى بقرن قر لقى قفن إلى بقرن لكن ولي كمان نيجي إذا ما نقدرين إن كعن ما أنت نستاجو أنا راهضو حيقول ردي تاني يجي إذا ما قلين شقيسون بني إذا كترت شقدام بكترت شقدي ما داوي سكاري إنه هك عرور كل شيء وتر كل شيء وحي كمان مالك لقاري ماشي تطاق عشان يحب دفرون كم مقام بده بريس كله هلا وحكى له دير ده ويا عنتك ما هي لا إذا وحي كين أنا بكاريونه وإنك أنت ضبط كاريونا كل شقينا بارجينا ناو تذكر مود قارية تذكر بطي مك تذكر بطي يسأل نفس الكيس ما جعلان له ملا هو ينلقي بيه كاريونا ده كل شقيسن لا هو والله أنا كيس كجبر قشاش كان حداف كان قريب مركاوي يعني إمك قشاش هالكيد كنت صار أنا رت ودنا نقص لسعنا أنا ودنا ذي شوية وطلع إلى يوم بابورتي واحد ولا إلى يوم ولا ضيع احتراء يوم هبتي مكان عاد احتاجنا لكن كل كي قشاش كدم بنكون قريني أرورتي بحس لقاعد إنه قشاش كي عرضة هوستان كذا شو لنا كاريونه توش أنا بعوين بنود له ليسي أو وين بندها سن بيحيني كل كان بيحينه حدي محبر باكرية محبر كأي اللي دبا ورد جري أورنجري هذا هو يسوع ماليه أدو نو ويدي بي أورنجري محبر كا مركز هو ينقل شبا هو يمكارسين كرها كاري كل نوع فريسين جري هالك باللقطة قمعتو كلام شوقنا أنت إيش جران هو كل كان برتن كشوقنا كل سو عرضنا يوان كل شبيني كل كان كل شبنا كل بعضك وحال دبا ورد جري بالك محيا هذا ما سكاشته متشريني محبر باكرية محبر كاسن دبا ورد إنه هو ينقل شبا هو ينقل قاضي مكارسين كرها جد بدي بانو دني حرده مكارسين كرها كل قبل اللقطة هالك أنت كسر إنه دحضة يعني حرده ولد هرتي هالك laga galo salaada laga galo kililka hortiisa yaan kala soo noqonay bil laqadan geeyeen inta albaabkan ka qaadno horteeda kililka halka saddexaadna waxaan keenay gibbi xiradan keenay baabuurtii xirada joogta ayaana lagaga shubay dawladda hoose halkaana lagaga shubo ayaan hadana weelkii maranaya kaariyoona istuliganayna iyo mafiiqi ama carrada waxaan u qaadanay guus ahaan yaana loo qaadayo meel guus ahaan aan ka soo harayno waan kaashi baan ku haraynay aroortiina waxa loo harayo undal lababa dhan masfarkiida waxaan dhaxoolay tawa kala Soomaa masfarka laba galay masfarkana laba kaariyoonaha wala iska nasin jiray kaariyoonaha wala iska nasin jiray wala kala shaqada qalb wala kala fududaay aru dadaalin baa lagu jiray markaan hooyo carran saburayna qalkii hore ilaahay saaradeen ku naga fadilay waan roonahay dhulkiina waxa laga wada dhigay islaam iyo marka way kaariyoonka imika in ma dadkan ma dad ma jiraan shakhsiyaal u leh oo kaariyoonka wata may dawladdan baa iska loo kaariyoonayaga kolkii meeshii fogna waa laga soo qaadaa meeshii dhowna iyagu xirada ku soo xireeya halka waa laga tiriyaa waa laga qaadaa halka waa laga tiriyo ruux silsilad weyn baa lagu xidhaayo lagu xafidayo lagu xanaaneeyo aroortii marka shaqada la galayo ayaa ruux waliba xabadiisii loo bixin u qaadan marka hooyo ma dad gaar ah baa la siiyay oo idinka micnaha team isku xirxidana mise ala qofka loo siiyay kaariyo looma siin labada ruux ay israaciyaan mid bay wataan labada ruux ay qintii isku israaciyaan mid bay wataan halka hooyo saas ma lagu shaqeeyaa idinku hadda hooyo adiga iyo أو قف كلا كلا سعدا. سيتون أول هذا واسيد توه وده شقينا إني وتذكر وحن كل عليك وحيلا سعدا قبل بين السعودي رما كود كان أركين أدين قابن تهاي تشان وانهرها كنا وانهرها سجاد برود ويا سجاد برود وانهرها أنا هالكن لا يركن كسب بلابي وحن كنت وجينا يا هالكا إسكويس كمالية ده كوريا هاسبته فقط المال تالي مال كم مقطن هي تاكل كان مصفر كان ده سعدا بجيب يجي سبلاني ورقدي هلاند دي تالا ما يراد هالكن مش شقينا يصير ودك كلا شقينا يوكو قراني ليش أنا ورقد كوارق وان حرايو شقد وشقي كقفصتي وان قاضي وحن كل ده ملا يرد براهيو بمشي يدو وقشاش شرن كواركو إلا أنا هالكن على قاضي وان كتره إسكيد لا وان كقرانه أنا قم مال كستم وان كقرانه مال كروك ما بقريبه ليش أنا ورقد كوارك هذا جد يرى مال يالار ده حيرة مال يالا وده ده حديده أما روح بكفنين الشاقة كنت قبنا وتك كتور بانه يا هو يحال كي وقاص ولا لا حول يحال كي يو تقابل dawladda hooyo si gaar ah iyaga maxaad ka codsan
dowladda horta waxaan ka codsanayaa inay horta aniga halkaan baa igu daran qodobka aan taabtay shaafi inaan u tago maayirka u tago aan doonayo kowdha haddana niyadeeda waxaan lagugu sii dayn maayo haddana waxaan idin maanta lagugu sii dayn maayo dhowr jeer baan inaan ka codsado nadhaa guriga iga soo dhiso hooyoy ayaan niyada ku qabtay haddana niyadeediibu ilaahay ii raaco wakaa saaka wada la kulantay codkaagana waxaan rajaynayaa inaan maayirka u geeyo hawshaadana insha Allah way gaari doontaa shaafi inaan idhaahdo maanta aqalkaa yar iga waaf hooyo ayaa niyada in badan ku qabto haddana waxaan gaadhkii baa jooga maaha waxaan way ku celinayaa taa aad baan niyada ugu qabtay ku sii dayn maayaan baad yaan isigaa taa niyada ku qabto meesha warwarka ugu weyni maadoo maqan ciyaalka ku dulbiciin baa leeyahay maadoo maqan baa maanta dad ku carruurta ku fariisan baan leeyahay halka dabeel aad ku aragtid dabeel markaad oo aragtid aba ku jirin baan idhaahdaa indhiina hooyo waad ku arkaysiin indhu waxa la yiraahdaa arkaan bay ku gooyaan hooyo idinka bay la soo arkay idinka meeshan ku jiray la soo arkay insha Allah codkaagana maayirka uu gaari doonaa oo ka soo jawaabi doonaa saar rajeynaa insha Allah waliba nafiican way shaafi bariya waxa jiraysa arimaha bulshada iyo qoreen wuxuu oran jiray in yaro maxamed loo oran jiray waa loo oran jiray joogi jiray fiicna wuxuu oran jiray soo markii maareeyo ka ahaa shaafina xagga dawladda soo garanaysa la soo oran jiray iyo markasta bil kasta wixii yimaada ka qayb galiya xitaa batri buu ogyahay batri inaan kan isaguna jooga maxay halkan maxaa la arimaha bulshada maalin markaan ku arkay wadada wax ku kaas maxaan yeelaayo haday wax yimaadiin hablaha weydiyo kaalay biigu halkaan taga haddana waan isagina waan waayaa inuu ma arkaba aqalkaan baan lahaa ka codsa iyagana wax yar xafiiska arrimaha bulshada qaaqudeeda maxay ahaydeen yaqaana baalkii maxaa dadku wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada xafiiska arrimaha bulshada mas'uul buu yahay waan isnaqaana isaga bedri sidoo kale wala xiriir doona isaga igu yidhiba aniga ahaan maryan ahaan hooyay buu yidhi soo inaan kuna kaama bukaha tanna markay igu yar xidhateen ayaamaha inta isaga naloo keenay iyo shaqada hadaan maanta ku jirin waxaan ku geynayaa arrimaha bulshada isaga way qorayo dhowr jeer oo sanadadii hore sanadkii dhaweyd ma waxba ka qaadan yaan laba kun dhowr ish yaan ka qaaday iska ka yadin waaya adduunka dad walba ku furan yahay haddana uu ku sii kala xun yahay markaan arko arrimaha bulshada waxaan rajaynayaa in codkaaga ni gaadho oo ka soo jawaabaan dhamaanba dhammaan qayladaas tagtay inay noqoto insha Allah tii khayr la noqoto oo guriga la iga dhiso la yiraahdo dawladii baa ka dhistay ayaana ilaahay ka rajaynayaa hooyo rajada ilaahay markasta codsigayga ilaahay u dhiibanayaa hooyo codsigaaga ilaahay haddaad u dhiibato waxba kaama maqna markastaba haddaad ilaahay ku xidhantahay waxba kaama maqna hooyo codsigaaga ilaahay baad u dhiibanaysaa ilaahay baan u dhiibanayaa hooyo inuu dadka ilaahay iga soo nixiyo oo ilaahay ii garab galo iyagana ilaahay inta maanta wuxuu ku tuuraa meeshiisa wax khayr qaba ilaahay u soo geliyo ilaahayna ka baryana insha Allah aan iyagana ducada u raacinaya insha Allah akasana ilaahay xaqiisa ku xidhan tahay aan hadlaynaaye wax kasta ilaahay markuu ku soo furfuro ilaahay ummadiisu ku dhaxgalaya insha Allah insha Allah waxaan rajaynayaa in codkaaga laga soo jawaabo dhammaan waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo wax haysata oo muxsiniin ah ilaahay agtiisa dhigatid ilaahay agtiisa waxa dhigatid birtooda waa wixii ku yimaado unooyo insha Allah waxaan rajaynayaa marka cid walba oo muuqaalkan uu gaari doono dadka muxsiniinta ah cid walba dawladda qaybaheeda kala duwan inay ka soo jawaabaan baaqaagan aad iyo aad baan ugu salaameynaa soo duceeyaa anagana insha Allah markasta markay dadku ila socdaan ay arkaan maanta aan shaqeynaya arkaan hooyo waxaan ku rajaynaynaa wax khayr qaba bay oranayaan biyaha dhoobada dhiidhiga marka roobku da'o wallahi waa dhaxgurayo oran kama wax kasho hooyo waxay meelayaan baan idhaahdaa xagga ilaahay baan ku jiraayo waxa aad arkaysiin ilaahay nimcadun buu iga dhigi baan idhaahdaa ma xumaysto hooyo alxamdulillah insha Allah maanta maalin khayr qabtaad ila kulantay insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa hadalkii la aqbalay ilaahay inuu hadalkaygana iga dhigo codsigaadii maanta codsaday dadweynaha ilaahay inuu iga dhigo codsi maanta khayr qaba oo maanta gurigoodii aakhire ilaahay igana uga dhigo ana maanta adduunyada korkeeda deeqal maanta la yiraahdo dawladeedii baa u dhistay alxamdulillah ilaahay inuu iga dhigo hooyo insha Allah aqalka hooyo haddaad aragtid in yar bay ku jiraysaa laba odhanaysidba xagga dambe haddaad ka martid istaabuu aguugay xagga hore haddaad ka martid wuu raacsan yahay halkaadee hooyo aqalkaan baa igu daran oo igu duldhacaya bisha dhaweyd baa laygu yidhi mid reerka ama u tegiyo iga furo ma odhanoo ma codsan bay gabadha igu tidhi anaa garanaya aan kula tegaba igu tidhi waxaan waxba ila tegine ilaahay baan rajaynayaa baan ku yidhi ilaahay dhulkana uu kaa siiyaaye
rajada ilaahay baan joogo ku joogi baan idhi ugu dhacana dee kolba waa la dhiman lahaay waan iska hoyanaynaa baan idhi fariyo intaan odhan lahaa qaliga fura waa haddana hadilaad bay igu noqonaysaa baan anigin baa haddana cabsaday oo ciddii hor jooga martaa waxay leedahay aqalka ayaa ku jira ha ku jirin aqalkaas isha dhaweyd waxaa la yidhi dadkii ku jiray miyay dhindhinteen markaasaan ku leeyahay anaa ku jiray awood baan u lahay gabadhkooda aqalkaa dadkii ku jiray miyay dhinteen bay tahay may ooyo anaa ku jiro awood baan u lahay anaa galaan ku yidhi ooyaa anaaba galaan ku yidhi hooya alxamdulilah diintaa dadweynaha ay codsatay dadka dee maanta gacanta kuma wada hayee ninkii xagga ilaahay ajarkiisa geysanaya intaa un hooya haddaad iga codsatay intaa un yaan ku adkaysanaya hooya insha allah way waxaan rajaynayaa in baaqaaga laga soo jawaabo insha allah hooya insha allah aad baad mahadsantahay kayguna nin geesiyo ahaa hooyo waa la wada garanaya baqaarkan uga shaqaynayo iyo wiilkaygu baqaarkan goose maaragtay nool ka dambeeya inamada imika dowladda hoose shaqaalaha imika dareeska qaaday way wada garanayaan min ragu ah hooyo insha allah isagana inuu caafimaadaan u rajeynayna bulshada Soomaaliyeed halka daawanaysa kala duwan inay u soo duceeyaan waxna ay soo taraan baan ka codsanay insha allah waa rajeynayaa hooyo wax yagan xagga aakhira u jiraye inba tamartiisa aqalkaan hooyo waan ku tusay aqalkan indhiinaad ku soo arkaysiin hooyo aqalkan ku jira haddaad aragtid meeshaan kala waad yaabi hooyo maxaanu haddana hooyo ahaan baan ugu hooyanaya hadhgiisa markaa yar fadhiista haddana in aqal ii yahay baan moodaya laakiin imika waxaan ka murugoonayaa oo aad uga sii murugooda qabayl in hadday timaado inay nagu tuurtaba oo nagu duldhacaba daawan imid ka baqa markaan maqanahay waxaan idhahdaa hooyo dabayl hadday timaado dibadda uga yaac aqal ku dhex jirina baan ku idhaahdo هاي إن شاء الله ولا قصوا جواب دونا إن شاء الله ورد عيني بالشوين ترى إن شاء الله أنت إسراعة وده شوكت الله إنك دقة إلى هنا إسكرنسيو يا إن شاء الله يا مسؤول أنت دمان وأنت دلك شوكت وأنا وده عيني يا أنت دلك شوكت يا أنت دبت شوكت دلك أنت ما أنت كنال إن شاء الله دلك ما أنت هرو مرة إن شاء الله إلى هنا سيادي يو إلى هنا سيادي هاي أمين إن شاء الله aad bay niyadeyda isku bedeshay run ahaantii maamada halkaas imika aynu isku wareysanay codkeedu waa cod qeyro leh macnaha oo qofka caadiga ah dareenkiisa aad u bedelaysa run ahaantii waxay tiri hal wiil baa ii jooga wiilkaas waxay tiri waxaan xanuunsanaya carruurtiisii baa joogta sidoo kale waxa codkeeda ugu adag ee ay codsanaysay waxa weeyaan waxay tiri gurigii aan deganaa oo ah jeengad aan ku dhex dhistay meel anigu aan lahayn ayaa igu dumeeyay bay tiri waxaan iskaga bedelo waan ku dhistana ma hayo meeshu waxay tiri waxa weeyaan xaalad macnaha adag baan iskaga jiraa waxa ay aad u codsanaysaa macnaha in gurigaasi laga soo dhiso guriga guri jeengad ah sida ay sheegtay oo boos iyadoo ayna lahayn ku dhex dhisan soo kale wiilkaasina uu ka xanuunsanaya codsigeeda ugu adag ee ay codsanaysaa macnaha waa taas waxaan rajaynayaa in laga soo bedelo amaba oo boos loo helo maamadaasi oo magaalada dhexdeeda la soo dejiyo sidoo kale waxa ay maamadu ka shaqaynaysay muddo aad u badan waa sanadihii beher saboojkii ama barnaamijkii qowmiyadaha Itoobiya xukuumadii hore ee Cabdi Maxamed Cumar ahayd bay shaqada soo bilowday maamadu ilaa intaas way ka soo shaqaynaysay siyaabo kala duwan iyo caqabado kala duwanna way kala soo kulantay sida ay noo sheegtay markaasi waxay codsanaysaa in lala qabto annaguna codsiga waxaan raacinaynaa in laga soo jawaabo baaqa maamadaas cid kasta oo codkeedu u gaadhana ay si naxariis leh wax loo qabato oo mahadsantihiin